شديدة وعنيه قاب كذا لو دقي اتما ايدن اركيو سيدا في ارحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن مركل فيديو سو جنرال كان نقول سعدان وحباب فاميلي أليقو ومسين سو دواد معنا وناكسن هبي وناكسن صبح وناكسن دور وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي كل سو دواد أصحابتي الرجوك صدق سو دواد لما عندي مسود دواد إن شاء الله وحنا غداين قصة كل فضل جنرال سبسكرايب نوصل لايك شير كومنت صاحب الواد قاعد ما سنتهين نقولش وحيران أقدم إن شاء الله مرة وصل دبل دقدونا فاميلي حباب إن شاء الله هو نبلا قصدين وحكي على UK رير UK نصور ويا وحكي على قلبيت كلندن وحكي على رير إسقابه أو فاميلي أمريكا إن شاء الله عبر وحالة ده هاي جون يحاسكيس وحس جورسين السنة دي لو ذكوني طبعا كي إن حاسكيس وحيد جبر موديل أو كشقيس إن حيسي ما درك كم بين درك حيسي وشقينيسي muddo kadib waxay yeelatay hanti ayada ay leedahay lacag far badan ay yeelatay oo markay shaqeynayso ay meel dhigatay waxa dhacday in lacagtii ay dhigatay meel inay ku furatay company oo dhar sameeya company-ga markay furatay company-geeda u kala kacay waxay noqotay qof shaqaale far badan ay u shaqeynayaan ninkeedana wuxuu ka shaqeynayay shirkad soo saartay dawooyinka caadiga ah oo la qaato xanuunada loo qaato soo saarto waxay sameysaa safar badan ay gashaa oo dunida ay ku kala tagtaa oo maalinba maxaytad waxay aadaa wadan ninka aad u karaasada safaradeedii ilmuhu waxay kaga tagtaa walaasheed iyo ninka iyo wax dhan guriga wada joogaan marka ninka aad u karaasade maalinta dambe wuxuu yiri soo dhawow waxaan u baahanahay inaad stop gareysid ganacsigan waxaan aawadid because maan jeclaysanin ganacsiga iyo waxa ku wareejisaa walaasha haddii kale ani waan kala dhamaanaynaa waxay ku tiri okay soo dhawow adigana lagama yaabo ganacsigayga inaan qof ku wareejiyo saas daraadeed marka waxaad jeceshaa waa samaysan kartaa asiga marka hadalkii wuxuu kula laabtay reerkiisi markuu kula laabtay ooyadiis waxay iska daa iska shaqaysato okay buu yiri oo iska ogolaaday muddo kadib haddana khilaafaadkooda muusan dhammaan uu soo laabanay markii dambe waxay tiri waxaan u baahnaa warqad u keento waxay tiri warqad inaad saxiixid aniyadeenoo kala dhamaatay because uma dul qaadan karo yacni jajuubkaaga iyo cadaadiskaaga faraha badan uma dul qaadan karo marka inaan kala dhamaano wuxuu yiri okay dhib mal aniyad waan kala dhamaanaynaa laakiin isii 3 maalin oo jaanis aan kaga soo fakaro hayabay ku tiri 3 maalin ay siisay maalintii saddexaad oo wuxuu sameeyay waxay ahayd yacni maalin axad oo weekend ah ilmaha marka wax barasho maysan lahayn saddexdeed ciyaal banaankii ku dhedheelayeen guriga banaankiisa ayadana guriga waxay ka haysayeen shaqo wuu u soo galay fridge-ka wuxuu ka baxsaday wuxuu cuno wixii soo cunay marka wuxuu soo gatay burus ama dube oo soo gatay oo wuxuu ku watay yacni ugu jiray surwaalkiisa jeebkiisa ugu jiray soo marka dubihii wuxuu sameeyay wuxuu kaga dhuftay halka gadaale oo madaxa kaga dhuftay dhulka markay ku dhacday wuxuu sameeyay wuxuu watay shukumaan ama tuwaal oo wuxuu soo mariyay dawo kaasoo marka wuxuu kaga qabtay afka seesanba u qaylininba oo wixna qaskii wix dhan ku xiray ilaa iyo sidoo asiga sheegay yani waxaan dhan asiga laga wareysay asiga sheegay waxaan dhan wuxuu sheegay in ilaa iyo 20 iyo dhowr daqiiqo ilaa 30 daqiiqo uu ku hayay tuwaalka afkaga hayay marka uu dareemay inay dhimatay oo maxay aysan nuuxs lahayn uu yaqaanaa because wuxuu la shaqeeyaa dhaqaatiir oo dawooyinka sameeyo la shaqeeyo marka uu yaqaanaa yani caafimaadku uu fahansan yahay isla markii uu taabtay wuxuu sheegay inuu ka taabtay meel kasta oo ka ogaan karo wadnaheeda garaac la'aan noqday wuxuu yiri markaas waxaan dareemoy yani farxad aad u weyn because waxay ahayd yiri musiibo noloshay soo weerartay markay dhimato waxaan dareemoy raxmad soo asiga dhahay waa ani ma dhihin okay wuxuu yiri waxaan dareemoy raxmad iyo nasteex because problem weyn ay ugu hayso yiri isla markii wuxuu sameeyay uu soo qaaday wuxuu geliyay fadhiida qaar waxay leeyihiin meel oo qaanada ah oo saas loo soo jijiidayo fadhigii qabto fadhiga qaanadiisu galiyay
uu ku daboolo fadhigaas iska fadhiista ilmihii u wacay cunoo siiyey wuu seexiyey waagii baa baryay weli meydkeed meeshuu ku jiraa waagiyaa baryay waagii markuu baryay wuxuu sameeyey walaasheeda message u diray oo yiri waan hilmaamay inaan ku soo waco oo maxay qoraal ku soo qoro mashquulana shaqan aad rabaa maanta waa isniin shaqan u socdaa aniga ciyaalka waxaan sii geynayaa iskuulka marka waxaan rabaa inaad timaadid oo gurigan ii hagaajiso sitir gabadhii wuxuu yiri safar soo gala safar degdeg marka waxay aadeen airline aaday waa inaad timaadid guriga ii hagaajisid oo ciyaalkii aniga naga hagaajisid hayaba ay tirdhib malaha waa imaanaa marka walaash waxaa jirta furo kale ee wadato oo markii yacni ay baxaysay siinji dhiijirta guriga tag waxaas ka sameey marka walaashaad furo kale wadataa walaashiyaa timid walaasha waxay gashay inay guriga hagaajiso kow waxay kasoo bilowday qolka hurdada soo hagaajisay qolka caruurta hagaajisay madbaqii hagaajisay suuliyadii dhaqday marka ugu dambeysay si ayada sheegayso walaasha waxay kusoo gabagabeysay inay qolkan fadhiga u yaalay inay hagaajiso waxaan dareemay tir marka wax si kala ur kalan dareemay waxaan is dhahay tir rooga meesha yaala caruurta waxay ku daadiyeen caani wax la mid ah huufuraan soo qaatay roogeen hagaajiyo urkii wuu batay ur aad u badanaan dareemay isla markii waan yaabay meel kastaan fiiriyey markii dambe waxaan is dhahay tir amee maxaytood qaanadaha fadhiga amee geliyeen wax wasaq ah saan markaan u feeday tir walaashay oo liigu dhahay tiri airline aaday oo fasaxay waxay aaday shaqay aaday waxaan arkay tiri kursiga ku hoos jirta isla markii way qaylisay oo waa isku soo baxay dadka jaarka ah waxna isku soo baxeen marka aan idin sheego walaashan oo imaanayso waxa la socdo wiil yar ay dhashay oo ilaa ay ilmahan 14 jirka la socdo marka hooyadii markay qaylisay sidaarada banaanka u fadhiyo game ku dheelaayay hooyadii markay qaylisay wuu cararay banaanku isaaga asigana wuu qayliyay dadka jaarka iyo dadka jidka maray wixina lagu soo kala orday waxaan arkay gabadhii wajigeedii bararay ayada dhan barartay because shalay waxaa la dilay ilaa iyo yacni maalintii axad waxaa la dilay casradii la dilay 3 galabnimo waqtiga gabadha ay helaysana waa 11 iyo barkii oo barqanimo waa markii la helay meedkeeda isla markiiba booliska la wacay booliska imaadeen ambalaasti ay maatay waxaa la fiiri waxa la yiri waa meyd way dhimatay isla markiiba guriga baaritaano lagu sameeyay waxba laga helin ninkii lagu tagay meesha xafiiska ku shaqeynaa waa la soo qabto waa la xiray hay waxa la yiri noo waran sidee wax u jiraan gabadhan yaa dilay sheeg runta wuxuu yiri aniga ma dilin aniga ayadoo fiican ka soo tagay isla markiiba dhaqaatiirtu waxay yiraahdeen haddii ay dhacdo xitaa walaasheed inay disho oo maanta ay disho meedkan waxaa meed ku dhawaad 24 saac ku dhowdahay waqtigii la dilay marka sheegaa la yiri qofka disho because gabadhan hadda ay imaatay guriga banaankiis camera ku dhagan kaamirooyinka markii la fiiriyo waxaa la arkay markii oo ii sheegeen dubaha ama buruska markuu soo gadanayo oo wuu keenay marka banaanka wuxuu kaga soo saaray wuxuu ku xirnaa warqada uu ku duubnaa banaanka kaga saaray marka waxaa la yiri sheeg gabadha gadaal markii loo baaro waxaa la arkay madaxa qaybta gadaal injug la gaarsiiyo laguna ciijiyo sun bahal sun la insanka iyo afka laga qabtay soo marka waxaa la yiri sheeg marka dambe wuxuu soo dhawaaday in aniga dilay because nolosheed waxaan u arkay inay tahay caqabad soo wajahday saas daraadeed marka waan dilay ma jirto wax kale oo ani ayada naga dhaxeeyo oo xumaan ah ama murana kale naga dhaxeeyay laakiin musiibo igu noqotay wax markay musiibo kugu yihiin in is dhaafay ku fiican tahay ilmaha waxa la yiri xitaa hadii ayada aan cad maxad ilmaha hooyada uga dishay ilmahayga waxaan u keenayaa qof kale hooyo noqoto ama hooyaday baan u geynayaa laakiin ma rabin naagtaas inay sii noolaato waayo waxaan dareemay inay iga hanti badatay waxaan kaloo dareemay in 24 saac safarto marka ma dareemi karo marka ay safarto hoteelka la seexataa ma ogi saas daraadeed marka inaan dilo waxaan u arkay inay tahay fursad ugu fiican iyo go'aanka ugu fiican aan nolosheeda gaari saas yiri marka wareysanayo isla markiiba maalintii la qabto maalintii ku xigtay waxaa la geeyay dhakhtar marka la geeyay waxaa la fiirinayaa in maskax ahaan inuu fiyo yahay isla markiiba dhaqaatiirtu waxay sheegeen inuu caafimaad qabo uusan meel lahayn maxkamadii la geeyay maxkamadda waxay ku xukuntay xabsi daa'in
because wuxuu geystay asigoo caafimaad qaba wuxuu geystay dil bareer ah haddana uu sheegayo qaabka uu dilay uu ka sheekeynayo siduu u dilay marka isla markiiba maxkamadda waxay ku xukuntay xabsi daa'in tan kale waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah inta la wareysanayo uu sheegay ha idilin marka oo madax aan ku dhuftay ee dhacday waxay dhahday marka afka ka saaray ha idilin hal mar xitaa haddii ay dilaysid ilmahayga ila kulansi anigana waxaan ku dhahay ilmahayga waxaan u helay hooyo marka waa inaad adiga naga dhamaatid ninka marka xabsi daa'in saas uu ku galay ilmihii waxaa la wareegtay walaashida la siiyey ayadana saasaa lagu duugay ma aqaan asiga wuxuu isdhahayay laakiin maseer camal ay u eg tahay sheekadiisa marka qisada intaasay ku dhan tahay dhammaantiin aada u mahadsantihiin janalka waa xabaab anigu waa museen insha allahu qisooyin kalaa noo soo wadaa hala laagareeyo hala sheer gareeyo waxyaraa noo dhiman insha allah hana la gaarsiiyo dhammaantiin waa idin wada jeclahay